Soomaaliya sharaf galwiyaan gabayada la tirinayo manso guruleyda murtido garti laga dhiyo golasan waayeelka dhaqankeenu Soomaaliya sharaf galwiyaan marna guuya heli mayno oo aan kanuga guurnaye dhaqankeena وقالكايو يلا قس مرين الله يا عيسى أبوان شوكان علي عبد النور ما شاء الله منك اللي يرهضوان كهي كلمة دهاس هو بدانو آن يرينا قلبي كدوغيهين مركزتنا وحاوي بريوريتي أفكينا إنا قرب سينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وإسفهم بروسوم ولو يهي قصع وانا الله حيصيح طبعا كذا ننكي برتال لغا تقسين تاي دادكو واكو تبي واديكي تابا قلين شراي شكيو قصع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة إيا ولالها إيا بلشدة قاليقة أهميل كستواد عالم كاكاقسو قنتيهين هل كان وإسفهم بروسوم إيشا إيا إسكول كأفكا صوماليقة فصل قيا قلب نظيف انت حكمة إيا عويس كعافيمات كقبا قصع شكيتي أدان هيغان كونا هي هميغين وشرف صومالي دا مكالو هرنو هل كان ويقصي منتهي كل قد واقيهين هكو دالين هيدا اللي يسلو ذا الشيء هورتا اللي يسلو ذا الشيء ميغين وأقول حكمة باقرارنا دقاها فرطة عاوة حبيب سيدا شكيتي أدو شيدان بصاحبة يالشانل كيني اسفهم بروسوم أيها ودا دي بقصو لابتاي أسيقو سيدي سي هوريتاكا قروح بدان كان فرحات بدان كان سي همي إيا فكرة دار aad ayaan ugu faraxsanahay walaalahayga iyo bulshadii badnayd oo isoo garab taagnayd igana soo codsanayay inaan u hawlgalo sidaan u soo celin lahaa channelkan oo ay markasta ii sheegaan xigmado iyo inay ka helaan barnaamijyo markasta ayagoo caraysan ay soo galaan ay farxad kala noqdaan aan la soo koobi karin walaalayaal anigu xataa sidoo kale waan arkaa meel fiican inaan u socono sidoo kaleeto waxa aan aad u soo dhaweynayaa bulshada kala duwan qiimaha iyo qadarinta leh madaxaadii saarantiin horta dad aad u badan baa ku soo biiray maasha Allah channelkeenu intuu gacantayda ka maqnaa saaxiibayaal waan idin soo dhaweynayaa xataa waxaa jooga qaar badan oo kamid ah subscriberskeena ama likerskeena ama followerskeena macnaha kuwa ay u rukuman yihiin social mediaheenu oo yiraahdo warniyow ninka kanima ninka aan codkiisa maqalnaa ay tiri gabadhi maalin dhawood ninka aan xabiib sheekeytiba isagii weeye xabiibku ya xaal baa idinku waajibay saaxiibayaal soo dhawaada bal horta gurigu waa gurigeeni ilma adeerayaal oo iga daayay calaalka badan wax aad ku faraxdaan waan idiin soo wadaa waana idiin keenayaa jacayl baan la soo dhacay horta maalmahan ii dulqaata nimayahow waxaan ku jiraa xilligii adduunka la igu baahida badnaa aniguna aan ugu baahida badnaa xilligayga aan ka faa'iidaystay soo garab istaaga ifahma saaxiibayaal waa waqti xasaasi ama fahmaysaan naftaydan wax yar u soo shaqaysto idinkana xilligii aan idin shaqayn lahaa wadowdahay saaxiibayaal kulay waxaad igu soo xasuusataan waad haysaane isoo dhiirageliyo dhinac kaliya murti iyo xigmad kuma dhisnaatee may maqlaysaan walaalayaal idan ku maqlayn malaqana ku soco malab weeye maadaama aad tihiin dad aan jeclahay walaalayaal saas macnaheedu ma ahan inaan idin soo gaarsiin doonin barnaamijyo aad u wanaagsan maadaama aan idin jeclahay walaalayaal ana soo burqinaya hadii aan ka badbaadna dadka kii baabi'inayay bismillaah bisinkaan ku adkayno kaliya samaahin videoyaal aan erayo soo saarno wixii aan ugu talagalay halakan inaan keeno laakiin hami ka weyn iyo ujeedda jirta sida aad ogtihiin ba anagu waxyaabaha yar yar iyo halgan baan ku jirnay hunguriyo soo ku qaadin way hal haysyada qaarkood aan isticmaalno marka aynu isdhiirigelinayno kuwana taageera ama barnaamijyadeena daawadana aan dhiirigelinayno saaxiibayaal ma garanaysaan waxaan qosolka u soo yareeyay qosolkiina jeebabka bad ku wadataan marakan macala anigii baad iga hormateene baakin baan dhigay bahalka waana yaabay kadib markaan arkay dadkii kitaabada aan ku ogeyn oo aan islaha mararka qaar ka qosli oo subhanallah Star Wars ka ku biiray marka ilaahay ha laga cabsado walaalayaal waa idin baryayaa aan soo noqono indhahaygu waxay aad
u soo qabtaan oo qalbigayga ku badatay malaha niman yahow dadka aan garanayo bay ku badan tahay geeridii inna lillahi wa inna ilayhi raajicuuntu mar kasta oo aan arkana waxaan is iraahdaa faa'iidada ugu wanaagsan oo aad siin kartid dadka kugu xiran maxay tahay taasina waxay ila muuqataa inay tahay ilaahay aan ka cabsano walaalayaal adduunku waa maalmeen rabbigeen aynu u toobadkeenno mar kasta walaalayaal xabiibo waan qiirooday ku rafaadnay beentee runta ma isu sheegnaa ilaahay laga cabsado mar kastana waxaan dareemayaa mas-uuliyadda iga kiin saaran aniga mas-uuliyad baa iga kiin saaran mas-uuliyaddaasna waxaa weeye inaan bal horta allah idin soo xasuusiyo rasuulkeennana aan iska dejiyo waajibaadka uu isaaray oo ahaa aayadna ha noqotee iga gaarsii marka walaalayaalo balaan culayska iska dhigay ittaqullah may maqlaysaan ilaahay ha laga cabsado meel kasta oo aad ku sugan tihiin marka intaas laga soo gudbo aad ayaanu mashquulay baan is oran karaa ama ayaamaha kale borogaramadii halasiga ahay idinma aanan soo gaarsiinin oo aad baad ugu xiisteen laakiin waxaan idiin sheegayaa sababtu sabab yar inaysan ahayn oo waxa aan isla raadinana ay tahay af iyo ummad insha allahu tacaala marka arrin sahlanna ma ahan arrin oo video keliya aan kusoo koobi karnana ma ahan ilaa waxyaabo badan la hirgeliyo malaha in laga sheekeeyo wixii aan weli hirgelinin waa laga wanaagsan yahay marka la hirgeliyo iyo waqtigeedaan insha Allah isla gaaraynaa hadhawaata hama fogaato run ahaantii waxaa ila jooga ama aan maalin kasta arkaa bulsho luuqad ay salahayn ama dad kale takhasab ku siiyaan oo lagu jujuubay ku hadlaysa qoraysa oo aan iyadu faq ama sir u gaara yeelan karinin mar kastana run ahaantii qalbiga si ka soo go'day waxaan u mahad celiyaa awoowayaasheenii ilaahay u suurageliyay iyaguna ku dadaalay inaynu luuqad aynu leenahay inoo gaara faqeenna gaarka ah qoraal hadal wax kasta inoo diyaariyaan walaalayaal waana guul weyn iyo farxad midaasi haddaynaan dareemaynin waxa ana ku dhiiranahay mar kasta hooy inaan intii awoodayda ah kaabo hagranna maya insha allahu tacaala inaan hagradana dhici mayso insha allahu tacaala waxaan ku fakerayaa wax aan horay loo hirgelinin oo caawinaya afkeenna ama dadnimadeenna ama dad ahaanteenna qoomiyad ahaanteenna inaan la soo shirtago hadduu alla idmo waxaa weeye dadaalku inooma yara waan jeclahay mar kasta inaan qajacduna ma reebane mar dhac idinkaga soo siiyo laakiin ku fakera adduunka wax kasta saad u rabtid mararka qaarkood u heli maysid aniga iga qortaa aniga wixii iga bilowda innaga oo dhan weeye innaga markii aynu niraahnana macalaa qofka curyaanka ah aguu yeelanayaa soo maaha wuxuu dareemayaa inuu luga leeyahay been idiin sheegi maye keligay ma aha laakiin Soomaali oo dhan iyo intii ficilka qaadato dhiiran waa u yaalaa oo aan ka magacaabi karo walaala abwaan shookaan nin la yiraahdo halay gelin dhaxadkii maran galalaf meerayi goran dhaqanka Soomaaliyeed kala gorfaynayay wuxuu gooya iyo waxa ku geedaaman intii aan garowsaday haddaan goobtan ka yiraahdo gaaridiyo gabdhaha good ka daban guriga geylaman geliyo fardaha iyo loodiyo guurku asharo martida gacanta loo fidiya iyo soorya gacaltoyo gabaatiga la bixinaya iyo guurka sharaftiisa diinto la garab siiya iyo sheekhu sharaf guule gabayada la tirinaya iyo maansa gololeyda murtido garti laga dhihiyo golasan waayeelka dhaqankeenu Soomaaliyeed sharaf galwiyaan gabayada la tirinaya iyo maansa gololeyda murtido garti laga dhihiyo golasan waayeelka dhaqankeenu Soomaaliyeed sharaf galwiyaan marna guunya heli mayno oo aan kanuga guurnaye dhaqankeenan wagaalkayo yan la gesmarin
aan kuu sheegay anigu heesaha waxa la yiraahdo shuqul iyo shaqo toona kuma lihi laakiin gabayadu xaajo rag weeye taasaan been ahayn midaad bowsatay ha noqdo ama midaad buux dhaaftay adigube markastana waxaa weeye priority-gu afkeenna inaan garab siino walaalayaal borogaraamo badan waan idiin soo wadaayo idin farxad geliya insha allah caawana intaan aan ku dhaafayaa waqtiga inaan idinka cuno maahan kulligeen waan koraynaa adduunyaana cayrsanaynaa rabbi ha idin garab galo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu harwash in the building maayo mehay laga kala dhanaan lee waaye waxna waa la dhigtaa waxna waa la dhaqdaaye dhiirageli isfahan brosom oo dhag ka sii subscribe